بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيارتنا نجيسانيسا ظهر وناكسن مالين وناكسن وصدق طبعا كبيشة أكتوبر طبناد لبكون يلبي لبعض وحنا يكون أدنت هاي تضبيط طبعا كربيع الأول كن أفر بقول أفرتن يافر تاريخ الهجري قد بدأ برنامج كدور نمو حلوسة دل جرمان تأتكم مغلي دونتان وحكم ذا لحتو إذا بنتي لانو شيكتين إذا قال سينيس ورد السياسة وردنا وحي كور بحنا يان كلن حالي إلقاتين مدحونها بنتي لان waxaa jira walwal laga qabo in golaha wakiilada ee Puntland ay soo hortaagaan xubnaha garsoorka ee madaxweynuhu uu sheegay inuu soo magacaabi doono sidoo kale xubintii sicirka iyo suuqyada xoolaha iyo warkii duurnimo ayaad maqli doontaan intaynan xubnahaas u galin aynu ku bilowno warka duurnimo ee barnaamijka Faadimo Degan Daahir ayaa ka soo jeedinaysa stuudiyaheena Daljir ee Boosaaso Faadimo mahadsanid Sakariye bismillaahir rahmaanir rahiim kulan ku saabsanaa xasiloonida ayaa waxa wada yeeshay madaxweynaha Soomaaliya iyo dhigiisa Uganda kulanka ayaa labada mas'uul inta badan waxay uga wada hadleen arrimaha amniga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhigiisa la wadaagay xaaladda amni ee Soomaaliya isagoo sheegay in meel wanaagsan oo marayo dagaalka ururka Al-Shabaab ay kula jirto dawladda uu hogaamiyo Uganda ayaa sanadkan waxay u dabaaldegtay sanad guuradii 60aad ee ka soo wareegtay xornimadii dalkaasi oo ay u dabaaldegtay maalinimadii shalay ahayd madaxweynaha Jamhuuriyadda Uganda Mudane Yoweri ayaa Soomaaliya ku bogaadiyay dadaalka ay wado ee ku saabsan dhinaca ammaanka wax la filayaa in dhawaan kulan degdeg ah ay yeelan doonaan xildhibaanada baarlamaanka dawladda Djibouti kaasoo ku saabsan ansixinta sharciga qaybaha nidaamka la dagaalanka xagjirka madaxweynaha dawladda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa dalbaday fadhigan degdega ah ee xildhibaanada Jamhuuriyadda Djibouti shir ku saabsanaa wax soo saarka beeraha ee Soomaaliya iyo iskaashiga dhinaca wax soo saar ayaa waxa magaalada Muqdisho ku yeeshay wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo safiirka dawladda Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya safiirka Mareykanka ayaa sheegay in Soomaaliya dhinaca beeraha iyo wax soo saarka ay ka taageeri doonto hay'adda u qaabilsan dalkooda beeraha wasiirka ayaa waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ee uu hogaamiyay Xasan Sheekh Maxamuud ay dadaal ugu jirto sidii looga faa'iideysan lahaa kheyraadka ku jira dalkeena ugu dambeyntiina 17 jirada qarankeena ayaa shalay guul ka gaaray ciyaar xiiso badnayd oo dhex martay dhigooda Uganda iyo iyaga xulka qaranka oo dadaal muujiyay ayaa garoonka waxa ay kala baxeen iyagoo kor u haya calanka Soomaaliya kaas oo ay ku muujinayeen hanka 17 jirada ee qaranka ay ku metelayaan 17 jirada qaranka ayaa ciyaartan ay ka qayb galeen waxay ahayd ciyaaraha bariga iyo bartamaha Afrika ee sanadka 2022 Soomaaliya ayaa finaal u soo baxday shalay markii ay ka badsheen dhigooda Uganda guusha sanadkan ee ciyaaraha bariga iyo bartamaha ayaa Soomaaliya waxa ay sugaysaa in Soomaaliya ay soo hayso sanadkan ciyaarta xigta ayaa la filayaa in maalinimada Sabtida ah la ciyaari doono warkii kooban oo qayb ka ah barnaamijka xulashadana waa iga inta aan dib idin kugu celiyo qaybaha kale ee barnaamijka oo dhameystiran iyo Sakariye Nuur Sakariye way mahadsan tahay Faadimo Degan Daahir oo warkii ka soo jeedinaysay stuudiyaheena Boosaaso aynu gudan galnay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa xalay kulan la yeeshay ururada siyaasadda ee Puntland iyadoo ay goobjoog ka hayeen wasiirka arrimaha gudaha iyo xubnaha guddiga ku meel gaarka ah ee doorashooyinka kulanka kadib waxa warbaahinta la hadlay wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland Cabdinuur Faarax Juxa waxaana uu ka warbixiyay kulanka iyo waxyaabaha ka soo baxay waxa ka dhacay kulan muhiim ah isugu yimaadeen ururada siyaasadda 9 ururka doorashooyinka ku meel gaarka ah ee Tibek iyo xukuumadda oo madaxweynuhu hogaaminayo waxa laga wada hadlay barnaamijka dardargelinta barnaamijka doorashooyinka golayaasha deegaanka xog baa la isku dhaafsaday dawladdu waxay soo jeedisay ama ay soo gudbisay meelaha hadda barnaamijka uu taagan yahay diyaar garowgii soo hodimihii la gudbiyay degmooyinkii la gudbiyay diyaar garowga xagga beesha caalamka guddiga doorashooyinkuna wuxuu soo gudbiyay arrimaha farsamada iyo meesha hadda xal marayo oo hadda ay u baxayaan hawlgaladii ururada siyaasaduna waxay ka doodeen dhammaan hawlaha taagan ee duruufaha say isu arkaan kulanka muhiimadiisa ugu weyn wuxuu ahaa dawladdu inay cadeyso ka go'aanshaheeda barnaamijka doorashooyinka golayaasha deegaanka
madaxweynuhu caawa wuxuu ku dhawaaqay in maxkamaddii sare iyo tii dastuuriga ahaaba la isla magacaabayo. taas waa war aad iyo aad u wanaagsan oo la sugayay. dhinaca kale ururada siyaasadda oo muddo ay jireen duruufahooda ka qaybgalka barnaamijka siyaasadda, dowladdu waxay caawa ay ku dhawaaqday inay ururada siinayso midkiiba $10,000 oo hal mar ah oo hadda ah iyo $3,000 oo bil kasta ah oo kirooyinka ah. waxyaalaha kale oo duruufahaana laga wada socon doono. waxaa la isla qaatay in dood joogtaa la yeesho, amuraha laga wada hadlo, geediga la wada socdo, laga umuliyo doorashooyinka iyo muhiimadda ay leeyihiin. ururadu dhammaan waa wada hadleen, kulligoodna waa soo dhaweeyeen 9 ururba in barnaamijka la wado. wixii caqabada ah oo jira iyo wixii procedure ah dooda in lagu xaliyo ayaa la isla qaatay oo sheekada iyo dooda la wado. kulan aad u wanaagsan buu ahaa. tallaabo kale oo muhiim ah oo ay Puntland ururada siyaasadda iyo guddiga doorashada iyo dowladdu caawa isla qaateen bay tahay. arrintaa waxaa loogu diyaar garoobayaa kulanka 18 dhacay ah ee beesha caalamkuna iman doonto oo iyadana la isla qaadan doono ama la isla sii takumi doono meesha barnaamijkaasi uu marayo oo commitmentiga xagga beesha caalamka iyo xagga dowladda Puntland. arrintaas kulan aad u wanaagsan buu ahaa. aad baan bogaadinaynaa. ururada siyaasaduna waa ku mahadsan yihiin iyo dowladduba. sidoo kale xubnihii ururada ka socday ee kulanka ka qayb galay ayaa waxay ka warbixiyeen natiijada kulanka iyo waxyaabaha uu Dani ballan qaaday. magacayga waa Siciid Cabdi Faarax, waxaan ka tirsanahay Runcad, waxaan wakiil ka ahay gudoomiyaha. waxaan caawa ku faraxsanahay inaan ka qayb galay shir 3 geesood ah oo isugu yimaadeen xukuumadda Puntland, TPEC iyo ururada siyaasadda ee 9 ah. arrintaas farxadda gelisay waxaa ka mid ah rag horena waa ka soo sheekeeyeen waxyaalihii la isla soo qaaday dhammaan in la isku afgartay. halkaana ay ka muuqatay 3daas madax oo meesha fadhiday ay diyaar u yihiin inay hoggaamiyaan doorashada Puntland. taas shacbi weynahana waa u sheegaynaa, dadka xisbiga ku xiranna waa u sheegaynaa in arrintaasi ay dhaqaaqday, ballanqaadkeedana uu fuliyey oo madaxweynuhu ha ugu horeyso maxkamaddii dastuuriga ahaa dhaqaale uu ku baaqay in ururada uu ku taakuleeyo iyo in la wada shaqeeyo ilaa uu soo gaarsiiyey heer ah ururada uu kalsoonina siiyo. uu yidhi wax alla wixii qalada ama wixii dastuurka ama wixii qaldan ka soo shaqeeya oo keena. taas marka waxaan caddaynaynaa in dowladdan ay ka go-an tahay in demoqrasiyadda loo gudbo. waana rajaynaynaa ay fusho. qof walbo Soomaaliya oo reer Puntlandna waxaan ka codsanaynaa in uu arrintaa dhinaciisa qabto oo aan nina lagu hadlayn. waa guul ay dadku gaarayso. waxaa laga raysanayaa 66dii. waa Daahir Xaaji Khaliif weeye, gudoomiyaha urur siyaasadeedka Mideeye. haddii aan warbixin yaroo kooban ka bixiyo kulankii caawa madaxtooyada Puntland ay ku yeesheen ururada siyaasadda ee 9 ah, guddiga doorashooyinka ee TPEC iyo xubno wasiir ah oo ka tirsan golaha xukuumadda ka tirsan uu hogaaminayo madaxweynuhu. run ahaantii kulankaasi kulan wuxuu ahaa lagaga arrinsanayay waxyaabihii lasoo maray ee doorashooyinkii 3 degmo ee Qardho, Eyl iyo Ufayn laga soo maray, si looga faa'iideysto waxyaalihii lasoo maray ama caqabadihii jiray kuwa dambe oo imaan doono 37 degmo ahna looga digtoonaado. waxaad moodaysa iyadoo markeedii hore ay jireen waxyaalo yaryar oo kala aragti duwanaansho ah. caawa markii la wada hadlay in waxyaalo fara badan laysu soo dhaweeyey. waxyaabihii ay soo jeediyeen ururadu oo ay tabanayeen madaxweynuhu runtii uu si fiican uga jawaabay, ballanqaadkeediina uu sameeyey. waxaana sugaynaa hawshaas inay u dhammaato sidii ballanqaadku ahaa. waxaa kaleeto lagu ballamay waxyaalaha dhiman oo u baahan dhammaystirkana in waqtiyada soo socda la qabto, si fiicana loo dhammaystiro, daraasad fiican lagu sameeyo, si team workana lagu shaqeeyo oo 3 dhinac oo guddida doorashada, xukuumadda iyo ururada siyaasaddu ay si wada jira u shaqeeyaan. arrintaas ayaa la gabagabeeyey. waxaan filaynaa ballanqaadyada la sameeyey inay sidooda u fulaan baan rajaynaynaa haddii Rabbi idmo. arrintaasi haddii ay fushana wax fara badan baa laga faa'iidayaa. intaas baan warkayga ku gabagabeynayaa. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. magacaygu waa Xuseen Musan Nuur, waxaan ka mid ahay mas'uuliyiinta urur siyaasadeedka Sincad
sinaan iyo cadaalad. waxaan caawa halkan runta uga qayb galnay xarunta madaxtooyada Puntland shir aad iyo aad muhiim u ah oo saddex geesood ahaa. waxaan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha dowladda Puntland shirka muhiimka ah caawa isugu yeeray ururada siyaasadda. dood fiican iskaashi fiican baa laga galay caqabadaha hortaagan barnaamijka dimuqraasiyaashinka. waxaan ku faraxsanahay ugana mahadnaqaynaa dowladda hogaaminaya madaxweynuhu inay arrintaas si fiican uga garaabeen cabashadii ururada ama aragtida ururada ka qabeen ayna miiska soo dhigeen in arrimaha la xalliyo. waxaan ku faraxsanahay madaxweynuhu inuu mandate ururada u siiyey uu yiri wixii caqabad ku ah doorashooyinka ururada soo saxaan wixii dowladda looga baahan yahay facilitation bay noqonaysaa. arrinta haddii laga dhameeyo runtii waa state fiican oo horey usii waday barnaamijka dimuqraasiyaashinka. waxaan ku faraxsanahay madaxweynuhu arrintii ballan qaaday caawa maxkamadda sare iyo maxkamadda dastuuriga ah. waxaan baarlamaanka Puntland ugu baaqaynaa inaysan caqabad ku noqon barnaamijka dimuqraasiyaashinka. waxaan baarlamaanka Puntland ugu baaqaynaa inaysan taariikh xun ka tagin. waxaan ugu baaqaynaa inay arrintan maxkamadda madaxweynuhu ka soo dhiso sida ugu dhaqsaha badan ee horumariyaan. waxay muhiim u tahay geedi socodka dimuqraadiyadda Puntland. baarlamaanka marka caleyna maanta aragtida shacabka iyo ururada siyaasaddu waa inay maxkamadda meel marisaan idinkana shacabka ka timaadeen. waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala inaad arrintaasna baaqaya ka jawaabi doontaan. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa saaxiibada ururada siyaasadda aragtidooda soo bandhigay. waxaan rajeynayaa barnaamijka dimuqraasiyaashinka inuu guuleysto. waxaan rajeynayaa in hore loo socdo. waxaan aaminsanahay Puntland inaysan istaahilin meesha hadda joogto inay sii joogto loo baahan in hore looga sii dhaqaaqo. waxaan diyaar u nahay inaan ka shaqeyno barnaamijka siduu ku guuleysan lahaa. waxaan diyaar u nahay wixii caqabado jira inaan isla saxno. waxaan diyaar u nahay in miiska la isugu wada yimaado. aad iyo aad baa umahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. xogayaha guud ee urur siyaasadeedka ka Ilyas Cusmaan Lugator runtii caawa madashan iyo kulankan muhiimka ahaa oo lagu dardargelinaya howlaha ururada iyo doorashooyinka qof iyo cod oo halka kan uu caawa shir gudoomiyey ama maartay ku casumay madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Said Abdullahi Dani iyo qaybo xukuumadda kamid ah oo ay hogaaminayeen wasiirka arrimaha gudaha guddiga TPEG iyo sagaalka urur siyaasadeed ee ka jira dowladda Puntland. runtii kulankan waxaa kulan la isku dhaafsaday xogo ay ugu horeeyeen inay TPEG la wadaageen ilaa hadda meesha wax marayaan. madaxweynaha oo runtii isna soo bandhigay warbixin iyo himilooyinka iyo ilaa hadda meesha wax marayaan iyo inaan dowladdu maaragtay ay ka go'an tahay waxba aysan kala harayn hanaankan isagoo runtii ururada la wadaagay inay dowladdu dhaqaale ahaan iyo farsamo ahaan iyo garab ahaanba ay garab taagi doonto. halkan kaga dhawaaqay caawa 10,000 oo u horeeyay iyo bil walba kab $3,000. runtii doodihii iyo tala wadaagii ururada siyaasiga ah ee saaxiibaday iyo TPEG iyo madaxweynaha iyo dowladdu caawa halka ku yeesheen wuxuu ahaa mid hoosta lagaga xariiqay in si isku mid ah hanaankan loo daadihiyo. meesha uu marayana niyad sami badan lagu muujiyey. inta ka dambaysana maaragtay in wada shaqayn iyo tala wadaag iyo maaragtay dardar in la geliyo dhinaca qolada dhinaceeda ay qabato maaragtay lagu kabay. marka waxaa kulan aad iyo aad u muhiim ah iyadoo runtii madaxweynuhu uu yahay kulankii saddexaad. horeyna ay u jiri jireen kulamo badan oo TPEG iyo ururada ka dhaxayn jiray. waxaan isleeyahay waxaa hoosta laga xariiqay wada shaqayntii ugu dambeysay iyo hanaankan oo niyad wanaag badan laga muujiyay in dhexda loo wada xidho. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismillahi raxmaani raxiim. magacaygu waa Axmed Saahid urur siyaasadeedka mustaqbal. caawa waxaan kasoo qayb galnay kulan sharafeed uu madaxweynuhu Puntland ugu yeeray ururada siyaasadda Puntland TPEG iyo golaha xukuumadda qayb ka mid ah. kulankaas oo lagu qaadaa dhigay caqabaadka iyo waxyaalihii laga bartay doorashadii la soo dhaafay. aragtida iyada urur siyaasadeedka mustaqbal ahaan runtii wax badan oo aanu qabnay oo dooda ahaa oo ahayd in wax la saxo oo ugu horeysa maxkamadihii dastuuriga iyo maxkamaddii sare in la dhiso ay ugu muhiimsaneed ayaa caawa halkaan madaxweynuhu ku ballan qaaday. taasina waxay caddayn iyo marag u tahay ka go'naanshaha madaxweyne Said Abdullahi Dani ee barnaamijkan maaragtay hirgelintiisa. arrintaasina arrin bogaadi mudan weeye. sidoo kale aan caawa hoosta ka xariiqnay siyaasiyiinta reer Puntland ee kala duwan ee meelaha kala duwan ka soo qaylinaya inay ku biiraan ururada siyaasadda ee Puntland laysan siyaasadeedna usoo qaataan siyaasadda darweyna ka shaqeeyaan lagana guuray ma garanaysaa tii soo jireenka ahayd oo ay yaqaaneen. marka niman badan oo laga tegay calculationkii siyaasadda ay garanayeen waxaan leenahay saaxiibayaal kusoo dhawaada midda cusub kusoo dhawaada inaynu maaragtay xukunka u celino bulshada kusoo dhawaada in garsoorka bulshada inoo noqdaan. aad iyo aad baa umahadsantihiin. magacaygu waa Jaamac Xarsi gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ururka shaqaalaha. runtii halkan waxaa ka dhacay kulan muhiim ah oo madaxweynuhu isugu yeeray ururada siyaasadda Puntland
taasoo ay uga arrinsanayeen qaabkii runtii barnaamijkii hore looga guuri lahaa barnaamijka qof iyo cod uu waddanku ku tallaabsan lahaa taasoo runtii aanu aada u soo dhaweynayno runtii aan aada ugu faraxsannahay wuxuu ahaa kulan muhiim ah isxog waraysi wanaagsan talooyin wanaagsan la isku soo qaatay la isxog waraystay runtii aad baanu ugu faraxsannahay runtii waana soo dhaweynaynaa in kulamadan oo kale maaragtay ay isku arkeen madaxweynaha iyo ururada siyaasadda Puntland runtii aad baanu ugu faraxsanahay ka urur ahaana runtii aad baanu soo dhaweynaynaa maadaama waddanku u guurayo nidaamka xisbiyada badan manfood oo laga guurayo barnaamijkii hore ee xisbi nidaamkii 60 ahaa runtii aad baanu soo dhaweynaynaa aad baanu ugu faraxsanahay waana waxa kaliya ee bulshada Puntland ay doonayso inay higsato oo ay ku faanto in laga guuro barnaamijkii hore runtii aad baanu ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha markii aanu aragtiyo badan isla wadaagnay aad baan ugu qaraacnay ra'yiyada iyo maaragtay fikradu noo soo jeediyay annaguna aan la wadaagnay aad baan u mahadsan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي هو محمد أحمد حسن قدومي كحجين كأورف سياسات كيفية عاوة وحن هالكن كلن كلية لني مدحوينها دولة بنتلاند ودن سعيد عبد الله الدني إيو قيب كم إذا قوله سوسير هذا سيدو كلا وحالكن جوكتي عاوة أورف كا قدية دولة هذا تيبك كلن كاس دحدي صوت كا وحلو كرفي أرمها دولة شوينكا كلها ديجان كأساس عضة waxaa laga jawaabay su'aalo fara badan oo ka yimid dhinaca ururada siyaasadda waxaa madaxweynuhu warbixin ka bixiyay ka go'naanshaha xukuumadda ee ku aadan doorashooyinka sidoo kale waxaan dhageysanay warbixin ay tiibak kaga warbixisay meesha ay u marayaan dhammaan wuxuu kulankani ahaa kulan niyad wanaaga waxaana ugu muhiimsanaa oo caawa ka soo baxay waxay ahayd in arrintii caqabada weyn ku ahayd doorashada oo ahayd maxkamadda dastuuriga iyo maxkamadda sare dhismaheeda in caawa madaxweynuhu ballan qaaday arrintaasi arrin shacabka iyo ururada macno weyn ugu fadhida weeyaan waxaan rajeynaynaa in madaxweynuhu sida uu u ballan qaaday u fuliyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ahay gudoomiyaha urur siyaasadeedka dhalinyarada magacaygu waa cabdiraxmaan muumin saalax caawa kulankii ka dhacay madaxtooyada Puntland wuxuu kulmiyey actriskii barnaamijka geedi socodka dimuqraasiyiinka oo ka koobnaa ururadii siyaasadda dowladdii iyo guddigii ku meel gaarka ahaa ee doorashooyinka Puntland waxayna ahayd in la turxaan bixiyo qaabka geedi socodka uu noqonayo iyadoo la iska wareysanayo waxyaalihii hore u dhacay geedi socodka soo u socon lahaa la isla turxaan bixinayo waxaan la isla qaatay markasta inay dood wadaag waxaadaan doodaha kan ay sii socdaan wixii u baahan xalna markasta lagu dhaafo qaab dood wadaaga horumarna sidaa laga gaaro tabashadana waxa weeye si wada jirta loo xaliyo haddaba iyadoo oo xubnahaasi kulanka ka qayb galay ee ururada siyaasadda Puntland matalayay ay fariin u direen in golaha wakiilada ee Puntland aysan soo taagin xubnaha garsoorka la filayo in dhawaan uu dani magacaabo ayaan goor dhaweed khadka taleefanka ee magaalada Melbourne ee waddanka Australia kula hadlay Ciise Maxamuud Dowlawa oo kamid ah aqoonyahanka Puntland waxaana hordhigay arrintan nidaamka ururada badan ee Puntland iyo waxyaabaha laga fili karo aniga aad bay ila xuman tahay dowladdu hanaankan muddada la sugayo bilowday oo hal cod iyo hal qof ah oo weliba ah in lagu sameeyo golayaasha deegaanka arrinta madaxweynaha iyo baarlamaanka anigu hadda ma aaminsanay inay waqtigeedii tahay lana samayn karo laakiin hanaankaas haddii deegaanada laga sameeyo dowladda hoose laga sameeyo waxaan qabaa wax fiican weeye dadku waa la isku naafsan yahay oo aragtiyo kala duwan weeye laakiin waa aragti moogtahay cid walba aragti bay leedahay laakiin wixii ugu wanaagsanaa oo hadda Puntland loo qaban lahaa weeye hal cod iyo hal qof in hore loogu dhaqaaqo oo weliba la kala qaado oo la yidhaahdo middaanaan hormarayna aniga marka waa soo dhaweynaya waana ku muxuu ahaa bogaadinaya khaasatan cidda loo dhiibay oo ah juxa oo arrintan muddo ku mashquulsanaa oo arrintan wax badan ka yiri oo wax badan ka qoray oo wax badan u campaign gareeyay waxaan qabaa ninka ugu habboonaa iyo waqtiga ugu habboonaa labadaba inay tahay dabcan waxaad sheegtay in hadda arrintaas golayaasha deegaanka uu lagu geli karo
xalay madaxweynuhu kulankii ula qaatay xubno matalaya ururada siyaasadda iyo guddiga kumeel gaarka ah ee doorashooyinka xubnihii ka qayb galay qaybtood oo warbaahinta kula hadlay isla madaxtooyada waxay ka dhawaajiyeen in loo baahan yahay baarlamaanku madaxweynaha marka uu garsoorka soo magacaabo inaan la hor istaagin ma kuu muuqataa adiga walwal hadda laga qabi karo maxay tahay walwalka xubnahaas ay ka qabaan in golihii wakiilada ee puntland ay hor istaagaan garsoorkii waa run oo haddee markii ugu dambeysay hadda wareegii hor istaagay arrintaanuna carqalad bay ku noqonaysaa arrinta siyaasadeed oo la rabo in la hormariyo way fiican tahay waana ku raacsanahay madaxweynaha waxaa la siiyey ilaa bishan oktoobar dhammaadkeeda maadaama marka middaas soo jidho waxaa fiican madaxweynuhuna inuu soo xulo jid u qalanta kartideeda iyo hufnaanteeda leh aqoonteeda leh oo aan u eexanayn cidna dhibta baarlamaanka iyo dadka qaarkood oo aragtidooda ka dhiibtay maxkamadaha iyo dadka loo soo magacaabayo maxkamadda sare iyo maxkamadda dastuuriga ah waxa weeye dad ka baqaaya in cidda loo dhiibaa ay u xagliso oo ay isu dhiibto oo ay ku xirraato xukuumadda markaa jira marka waxaa loo baahan yahay in ciddii la magacaabo ay noqoto cid u hiilinaysa waddanka sharcigana ablay garaynaysa oo sharcigu wuxuu qabo aan baal marayn noqdo dad lagu aaminay inay xaakim ka noqdaan wax kasta oo jira marka arrimahaasaa keenaya in dadka qaarkood ay yidhaahdaan waana wax fiican nimankan dadkaan ah xisbiyadu arrintaan ay soo dhoweeyeen iyo arrintaan ay codsadeen waxay ka turjumaysaa baahiyaha la qabo oo iyagu shakiga ay ka qabaan oo ay ka mid tahay maxkamaddii sare oo ay ka mid tahay maxkamaddii dastuurigaada haddii wax laysku qabto hagaajin lahayd iyo dhinaca kale oo baarlamaanka isagoo ruuxiisu ka baqsan ciddaa loo dhiibo inay noqon cid si saxa ugu shaqaynaysa dadka iyo dalka laga yaabo inay noqoto adigaa sheegay tuhunka baarlamaanka dabcan ama golaha wakiilada oo la xiriirta in ciddaasu ay noqoto cid madaxtooyada u xaglisa dhowaan waxaa jirtay kalfadhiga u dambeeyey ee golaha wakiiladu intuu socday in ay dib u celiyeen xubno uu madaxweynuhu magacaabay garsoorayaasha maxkamadda sare ee puntland kadibna saacado gudahood madaxweynuhu uu isla garsoorayaashii uu dib u magacaabay isagoo weliba safar ku maqnaa ma oran karnaa madaxweynuhu isagaa tuhunka abuuray sababta uu kuwaas hore ugu dheganaa haddana walwalkii unbay golaha wakiiladu qabaane wax zaa'ida kama jiraan waa run horta sideedaba tuhun baa jira oo la rabo in madaxweynuhu iyo ay kala madax bannaanaadaan maxkamaduhu sababtaa saddexda haykal oo baarlamaanka iyo xukuumadda iyo garsoorku inay kala madax bannaanaan baa la rabaa ay noqon dad isku midan oo iswata oo jeebka isugu jira waxaa la rabaa marka madaxweynuhu inuu soo saaro dad u qalma oo kartideedii iyo hufnaanteedii iyo aqoonteedii leh laguna kalsoonaan karo ilaa had lagu kalsoonaan karo moogta qofka bini aadanka ah cid walbii moogtahay cid baa jecel cid baan jeclayn cid baa ka shakisan marka madaxweynaha laga rabaa inuu tuhunka saaro hadda waxaan dhegaysanayay dad badan oo fikirro kala duwan qaba arrinta ay ku soo celcelinayeen bay ahayd maxkamaddii ma jidho maxkamadaha waxaa laga yaabaa inay noqdaan dad madaxweynuhu wato marka waxaa la rabaa in madaxweynuhu waxaan oo dhan ceebka saliin ka noqdo oo ka baxo oo wax dadku ay ku qanci karaan oo baarlamaan ku qanci karo oo xisbiyada dadka la filayo inay ku soo baxaan ay ku qanci karaan baa la rabaa in la soo saaro ay noqon in haddeer lagu soo diido misana waqti yar buu haystaa arrin aad weyn buu rabaa inuu hirgeliyo waxaa la rabaa in hadda dad u qalmo oo kartideedii iyo hufnaanteedii iyo aqoonteedii iyo kalsoonideedii intaba leh inuu soo saaro oo dadku ay markaa dadkuna caadiga ahayna ay raalli ka noqon karaan baarlamaankuna uu gudbin karo oo ayan dhibaato ka keenin waa mahadsan yahay ciise dhoolowaa Somalo isku duubaniyo dimuqraadiyad
iyo dimuqraadiyad buu rabaa doorkuu ku lahaa dalkiyo codkiisuu doonayaayo dulmiga isticmaalka iyo qabiilkuu diidayaa qaybihii dambe ee barnaamijka xulashada daljir ayaynu ku sii siqaynaaye baarlamaanka dalka Lubnaan oo maanta fadhigoodii baaqday kooram la'aan ogeed iyadoo ay ahayd fadhiga maanta in baarlamaanka dalkaasi ay ku doortaan madaxweynaha cusub ee wadankaas xubintii sicirka iyo suuqyada ayaynu haatan maqlaynaa dhageystayaal waxaana stuudiyahan Cabudwaaq ka soo jeedinaya ayaan le Cabdulaahi Jaamac dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii sicirka iyo suuqa maanta Cabudwaaq kiishka bariiska ah kontonka kiilo qiimihiisu waa $32 kiishka burka ah qiimihiisu waa $37 kiishka sokorta ah waa $250 kartoonka baasada ah nooca xilwa waa $11 halka noocyada kale ay yihiin $9 iyo bar caagada saliidda ah waa $6 caanaha daasada weyn nooca xilwa waa $17 dhinaca qudaarta haddaan u leexdo kiilada bardhada ah waa 70 senti kiilada basasha ah waa 80 senti kiilada yaanyamrooleyda ah waa 80 senti dhinaca shidaalka baasiinka taangigi waa $26 naaftada taangigi waa $24 gaaska cuntada halka kg waa 30 halka nooc kalena uu yahay 41 iibka xoolaha geela qaliinka ah neefka ugu hilboon waa $700 ilaa $650 dibaaxa ariga neefka ugu hilboon waa $65 neefka jarka ah neefka weyn $75 neefka jaqiiqda ah ama raabaca waa $50 intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa dhageystayaal xubintii sicirka iyo suuqa oo idinkaga imaanaysay magaalada Cabudwaaq anigoo ah Ayaala Cabdulaahi Jaamac ayaa idin soo jeedinayay oo maanta yahay Ayaala Cabdulaahi Jaamac oo xubintii sicirka iyo suuqyada xoolaha ka soo jeedinayay magaalada Cabudwaaq stuudiyana ku yaala guud ahaan barnaamijkii duurnimo ee xulashada daljir maanta waa naga inta aniguna Zikriya Nuur Faarax ayaan ahay moogta macmil in akoonka Sayfin akoon oo kamid ah akoomada Salaam Bank aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqada iyo meel kastaba waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga xidig lacagta 4 gees Sayfin akoon waa koonto dhigaal ah oo macmiilku ku keedsan karo lacagihiisa si fudud waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bangiga oo kaliya ku keedso lacagahaaga koontada dhigaal ee bangiga Salaam